Saaraha dabkii shalay qabsaday qaybo ka mid ah suuqa xerada Xagardheera ayaa haatan soo baxaya waxaana halkaasi ku baaba'ay hanti fara badan. Waxaa ku hanti beelay dad fara badan oo xoolahooda ku waayay dabkii shalay subax qabsaday suuqa. Ganacsatada, mas'uuliyiin deegaanka ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen. saaka abaarihii 2 saac iyo wax la jiro markii ay ahayd magaalada dab baa ka kacay. Xagardheerna waxay caado u lahayd intii maxaan ku raadaaye ilaa mudadii 30 sano oo qaxootiyada ay joogeen in mar kastaba dab uu ka kaco magaalada mudadii ugu dambeysay ee ay gubatay wixii ka dambeeyay plan fiican baan u sameeynay oo jidad baa muxuu isgogoynaya oo 6 mitir iyo 10 mitir ka kooban baa loo sameeyay magaalada muxuu ahaa xariyaha qaxootiyada saddexda waxaan u malaynayaa midda ugu balan fiican inay tahay Xagardheer iyadoo muxuu ahaa waxoogaa ganacsatada ee jidadka qaarkood naga xirxireen oo bustooyin iyo waxyaabo ay ku xireen laakiin waa hawl fudud oo dabcan markii loo baahdaba maxaan ku raadin dadka noo soo gurmaday iyo dadku dhibka ku dhacay iyo dhammaan dadka ku nool Xagardheer waan salaamayna markii ugu horeyso martida sharafta leh waxa ka dhacay Xagardheer shil baa ka dhacay oo dab ah waxaan filayaa adiga hal section oo ilaa iyo 12 store ah baa hadda naga gubatay oo noocyo fara badan isugu jiro cosmetic iyo alaabada waaweyn isugu jirta waxaan u baahanahay caawin marka laga hadlayo in macnaha laamaha dawladda inta masiibada ay dhicin ay nacaawiyaan oo wadooyinka nagala caawiyo caawinta dhanka macnaha dawladda hoose badana xilliga ay sanadku u dhamaado oo canshuuraha aan aragnaa laakiin kuma haysana caawin kuma haysano dawladda hoose ee laamaha canshuurta anaga naga qaado dabdamis joogta ah oo macnihiina ma lahan heer cross ba hadda noo soo gurmatay waqti ma garanaysa ay talafara ka baxday lafteedna soo gaadhay oo dadweynaha uu dabka gacanta ula tagay lafteedna soo gaadhay laakiin alxamdulillah dabkiyo inta badan la xakameeyay bayna soo gaareen inta dambana ayaga dhameystiray oo nacaawiyay runtii arintan dabka markii bilaawanaysay anigoo xafiis ku jira ayaa qola ganacsatada kamid ah soo wacde waxay dheen magaalada ayaa had dab ka dhacay isla markii waa respond garay telefoonka markaan jare waxaan u wacay qolada Red Cross maadaama dawladda hadda dabdamiska inta ay ka dhaweyn waxaan u wacay Red Cross after within they have respond me well so degdeg ayaan oola hadlay markii 5 minutes iyadoo qaadanin dabka ayaa bilowday xilli subaxnimo ah oo ay dadka intiisa badani ka maqnaayeen goobtooda ganacsi kuna soo gaareen goobtii oo dabku baabi'iyay magaaladaas ganacsiga alaabta kor laga keenay jumlada tafaariiqa xaraashi jiray alaabtaas aan gadi jiray hatta dad aan qaar ka soo qaada jira hatta macnaha aan u xaraashi jiray anigana kuwii waa isku darsan jiray wixii dhan waa halkaas ku gubtay saak marka kulli arrin qorneed waa waxaan garanay ma anigana magaalada xaafadda iska jiifay ma ogeen macnaheed waa soo dahay meeshan ku soo dahay 3 saac aan soo galay suuq xaafadda ka soo socday ma dhow gurigeyga kay baan degana hadaa imid gurigaan oo leeyahay umid meesha dabka ololeysan umid maxaan ku hadlaa markaa maxaan dareemay khasaaro bay u dhacay sama inaan waxaan hay aan soo adeegay ma jiro waxaan qaban karaa ma jiro maxaan qabanay xamaal inaan noqonayo moogay gaar gacan reexay moogay ma wax kale ii dambeey malay waxaan xaraash alaabta hadda la soo adeegin qaarna Soomaaliya ka imaanaysa qaarna Nairobi hadda timid xilligan gadi lahaa aan u soo diyaar garow hadda ahayd waxaan codsan lahaa inaan macnaha samafalka adduunka inay caawiyaan macnaha waxa ma hayna ilmaana sugaa bil baan naga raasama waxaa si weyn u soo gurmaday isla markiiba goobta soo gaaray hay'adda Red Cross oo dabdamis soo gaarsiisay waxa inooga waramaya mid ka mid shaqaalaha hay'adda Red Cross isla markaana la dagaalamayay dabka 55 نواجه. طبعاً أنا لدي أغني وأنا حكميني نواحي كذا فكرت في التجارة طبعاً وقت دي بعد أوكي إلا هذا أنا ماشي عيد الموضوع في طبعاً حاجة هلا الاستعمار هيك سبب الدنيا حاجه منها فست وحلوه قاعدين على طبق بس على تلاش هي اللي جوه جاي اللي جوه وعملت السيدي ما اللي وجهت مش قد من جيسان كدر واسر كل درنا سوريا ذيك اليوم يا راي نطق صفه وبكره محاكمه طبعا يلحق اوكل وعيالها سيده وعيالها اويلكا سليك راشد
waxyaalahaas fara haddii aad ku cusub tahay channelkan Sabca Jazeera subscribe inoo saar si markaas aad u hesho dhacdooyinka xiga isla markaana aad inoogu caawiso subscribe-ka fadlan like saar haddii aad hore u joogtay mahadsanid daawashada fiidiyowgan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.